barnaamij loogu magac daray tiiraanya bixin oo ka socday 16 degmo ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho ayaa isla magaaladaasi lagu soo gabagabeeyay warbixintan halka waxay nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Cali Xuseen barnaamijkani loogu magac daray tiiraanya bixin oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay 16 degmo ee gobolka Banaadir ayaa waxa lagu baranayay sidii ay shacabka Soomaaliyeed u ilaawi lahaayeen waxyaabihii la soo maray ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya xarunta degmada Warta Nabadda oo lagu tababarayay 50 haweena oo ka kala socday waaxyaha degmada ayaan Cali Xuseen oo kamid ah macallimiintii tababarka bixinayay ugu horeyn halkaasi ka hadashay waxaan bilownay maxaa ay sheegeen qaybtii koowaad oo aan ku tababarnay kontonkii annaga la soo tababariyay annagoo iskaashanayno kontonka saddex bari u socday maanta iyadoo ah xilitaankii oo intaas casharadii loo soo dhigayay gabagabadeedii ayna xaadir ku yihiin kontonkii wax tababaray iyo kontonkii la tababarayay maamulka degmada oo kala haray garab weyn laga siiyay in aan maxaa ay sheeg shaqadan hore u wadno markii hore nagu dhiirigeliyay in aan galno ka qayb galno ka bacdina aan socodsiino gudoomiyaha maamulka degmada Warta Nabadda Deeqo Cabdulqaadir Axmed oo yana halkaasi ka hadashay ayaa waxay dardaaran u jeedisay haweenka Soomaaliyeed tiiraanya bixinta iyo konsolkii iyo waaxihii la shaqeeyay inta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxaa mahadleh December hadii la dhaw voluntary lagu shaqeynaa ama waxa la qabanaa horumar la qabanaa in haweenka ay u horumaraan waa u jeedaa maanta waxa meesha fadhiya waxa meesha taagan hooyooyinka ayagoo ka fikiraayo gurigoodii haddana naftoodii waxay u horeen in degmooyinka ay horumaraan haddii la dhaho nadaafada laga shaqeynaa ayaga u taagan haddii la dhaho tiiraanya bixin 16 degmaha la sameynaa ayaga u taagan ragga waxaan dhihi lahaa kursi kaliya si ku mashquulina ha ku mashquulaan dib u dhiska degmooyinka iyo sida ay degmooyinka wax looga qaban lahaa iyo sida loo horumari lahaa iyo sida loogu shaqeyn lahaa iska wax qabso waa aragteen goobaha dowladda oo dhan waxaa lagu soo dhisay iska wax u qabso maanta daadhaadi 10 rag kaalay meesha waxay la qabto wuxuu ku leeyahay wax noo sheeg qaylaada meel saar war qaylaada waxa ka muhiimsan dugsigii lagu soo dhisay iska wax u qabso oo ilmaha wax ku baran lahaayeen meesha santarkii lagu wacyigelin lahaa haweenka iyo carruurta marka horta haweenka uga mahadcelina waxaan jeclahaynaa kuraasta ay ku leeyihiin dawladana insha Allah inay helaan barnaamijkani tiiraanya bixinta ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka soconayay 16 degmo ee gobolka Banaadir Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel xarunta degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir